kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayo afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Abuukar Maxamed Xasan ahna madaxii hore ee wacyigelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sheekh Abuukar maanta waxa uu nagu soo booqday xarunta dhexe ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan ciidamada iyo dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto khawaarijta al-shabaab. ugu horeyn Sheekh Abuukar ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba warbaahinta qaranka marka xigta si guud waxaad faahfaahin naga siisaa waddanka sidaan ognahay waxa ka socda dagaal khawaarij iska xoreyn ah sidoo kale waxaan ognahay inuu socdo abaabul ciidan oo xoog leh oo loogu diyaar garoobayo dagaalka muxuu yahay qorshaha xoreynta waddanka ee wasaaradda gaashaandhigga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين liibaan aad u mahadsantahay adiga iyo xogaha agaasinka iyo wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed guud ahaan waxa sida la og yahay siyaasadda guud ee dowladda Soomaaliya ama ta wasaaradda gaashaandhigga ayaa ah in la cirib tiro khawaarijta argagixisada al-shabaab ee dhibaateen ku hayso dadka Soomaaliyeed siyaasad guud oo u degan xogaha iclaamiye madaxweynaha jamhuuriyadda waaye fulinteedana waxa laga rabaa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddaan gudaha u sii galno dagaalka khawaarijta maalmihii lasoo dhaafay waxaa la dilay horjoogayaal badan si gaar ah beegsi waxaa socday lagu haayo waxa ugu dambeeyay ama ku jiray xubnihii maalmihii ugu dambeeyay la dilay Malaaqori in lagu magacaabo oo ahaa nin aad u dhiba dadka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer gobolka Bakool Galgaduud iyo Mudug sidoo kale xubno kale ayaa lagu dilay faahfaahin naga sii howlgaladii ugu dambeeyay هذا ما سنتين قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد إلهي وحول لي هداد يقول شكرسان ويدين زيادين يا هداد وكفرسان وعذابك ومدرا إلهي وحن وش شكرنا تلسك عيدنا كحق دك Soomaaliyeed uga mahad celinayna sida ay u beegsanayaan dhagar qabayaasha caadaystay daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah daadinta qaadashada maalka ummadda Soomaaliyeed waxaan si gaar uga mahad celinaa guutada sagaalaad qaybta 6aad oo howlgal ay fulisay ku khaarijisay ninka malaaqa u yaqaanaan khawaarijta oo Bakool cunaqabateeyay dad badan ku laayay kaas marka in ummadda laga reebo shay waajib ah oo diini ayuu ahay marka uga mahad celinaa guutada sagaalaad sidaas oo kale waxa la qabtay 150 jeerikaan oo shidaal ah iyo agabkii kale ee qaraxda ku sameeyaan sida budooyinka qarax laga sameeyo waxa laga qabtay deegaan u dhaxeeya Xarar Dheere iyo Ceel Dheer horena looga qabtay BG alaab ku raran yahan hore loogu laayay horjoogayaal sidaas oo kale howlgaladii ugu dambeeyay waxa isku ayaga ayaa isdilay bacdama ay dhaawacii meel ay ku daaweysteen waayeen waxaan ugu mahad celinaynaa marka dadaalada socdo oo iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadka deegaanka tali markaan dib ugu laabano howlgalkaas aa sheegtay in lagu qabtay shidaalka dabcan wuxuu ka dhacay eriyada degmada Ceel Dheer iyo Xarar Dheere inta u dhaxaysa halkaas hadda ka hor waxaa lagu gubay gaari BG ah oo ay kiimikooyinka qaraxda ay ka sameeyaan ay ugu soo degay dowladda Soomaaliya ma u suurtageli weysay inay xeebtaasi dhigto ciidan dabcan raggan waxa u soo degaya ka hortay aad ma santahay sidaan la socona dhowr sano ka hor shidaalka khawaarijta wadadan uu mari jiray iyo wadooyinka la midka ah hadda wado kastaba ciidamada amniga qaybooda kala duwan ayaa fadhiistay wada la marsi karo ma jirto agab loo wada khawaarijta waana dambi hay'adihii kala duwanay dawladda hadii ahay la xukuumadda iyo hadii hay'adaha amniga aan lahayn dabagal ay ku hayaan taas bedelkeeda waxay dhuumaaleysi ay ku mareen badda haddana waa looga daba tagay halkaas markii laga reebo shidaalka aan aragnay sawiradiisa caagadaha ku jiray ma jiraan rag lagu qabtay iyo doontii keentay ama gaadiidka lagu qaadi lahaa baaritaan socdo rag gacanta lagu dhigayo baabuurkaas isma wadin waxa la cadeeyay inay ka mid tahaayeen loo wada khawaarijta al-shabaab bacdama wadadii la maray adkaatay oo ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed dadka deegaanka meel walbaba jadboontiyo loo dhigtay lagu ugaarsanay khawaarijta taas waxay ku tusinaysaa meesha ugu dambeysay waay xoolahay badda inay isticmaalaan ayadana waa taas lagu fashiliyay mudan afayeen waxaa jira warar maalmihii lasoo dhaafay soo baxay oo sheegayay weli maalmihii u dambeeyay toddobaadkii dhamaaday in khawaarijtu ay dhaawac tireen xubno maleeshiyaad ah iyo horjoogayaal aagga u dhaxeeya soodinta u dhaxaysa gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud maxaa xog ah oo ka haysan hadda koora waxay Soomaalida ku mahmaadaa
wiil iyo gabar isla dhashaa badar la isla sidii jiray marka gabadha ka rooneeda gacanta bidixda meesha badarku cunay saare midigta ku sarbisay anigoo baabaa la arkay war waxa la wiilka geesa loogu bixiyay raashinkii geesa loogu bixiyay habeenka dambe ayadoo wuxuu arkay gacantii meel saartay gacantii midigteeda badar ku sarbinayso markaas wuxuu hooyay waxay anigu hay jirtay isku haysaa balaaygo dhah marka khawaarijta waxay ummadda Soomaaliyeed ku hayn jireen oo gaarsiga ah ay ayaga hadda maanta isku hayaan hadii la waayay meel ay isku daaweeyaan hadii la waayay qarash isku daaweeyaan hadii la waayay meel ay marsiistaan waxay danta ku qasabtay halka ay xoog dalka Soomaaliya dhameystir lahayd in ayaga dhameystiraan waana meesha ugu dambeeyay qofka bini aadanka ah oo xanuunka ugu dambeeyo gaaro waa laakiin waa jirta arintaas boqolkiiba boqol arrin jirta waa oo sugan dhanka wacyigelinta waxaa jirta ama jira dhalinyaro badan oo cadowga u afduuban ama ay ka dhaadhiciyaan afkaartooda iyadoo la adeegsanayo wacyigelintaas la mid ah sidee looga dhaadhici karaa ama looga dhaqi karaa afkaarta qaldan ku shubeen ma kuwa jira mise kuwa ka yimid kuwa jira waxa looga dhaqi karaa in hortii media ma ogolo oo idaacadooda barbagaanka qaabilsan oo Andalus bis ayaa laga dhageystaa deegaanadaas laakiin waxa laga dhaqi karaa in Muqdisho iyo deegaanada nabadda ah bulshada joogto shacabka ilaan khawaarijta dad Soomaaliyeed waaye dad dhalay dadka dhalay in afkaarta iyo siyaasadda dawladda ay ka leedahay iyo diinta islaamka wixii khawaarijta qabteen loo cadeeyo kadib canuga markay wacato hooyo war dawladda saas ay leedahay ka imaa inay dhahdo ayaa lagu gaarsiin karaa bacdama hadda telefishinka qaranka laga fiirsaneen deegaanada khawaarijta haystaan bacdama aan internet loo ogoleen oo aysan arkeen maanta culimada Soomaaliyeed waxay fadwoonayaan waxa waajib in waalidiinta Soomaaliyeed maskaxdooda la gaarsiiyo la kobciyo loona sheego khawaarijta iyo ujeedooyinka guracan ay ka leeyihiin dhibaateynta dalkan Soomaaliya waxaa jira taliye Soomaaliya waxa laga qaado cunaqabateynta hubka ma helnay wixii ka dambeeyay markii cunaqabateynta sanadka la qaaday hub ka duwan kan khawaarijta ma jira qorshe ay wasaaradda gaashaandhigu wax uga bedelayso hubka isticmaalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay uga adkaadaan cadawgooda aad iyo aad waa jira oo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhiga sida hadda la socotaanba barkii cunaqabateynta lagu guuleystay oo madaxweynaha ku guuleystay dhaqdhaqaaqi howlgalka hore u siyaaday hub culus oo noola ogolaa jirana gacanta ku dhignay sida rajeynayna waayadan dambo meelaha yar ee uga dhuumaleysanayaan Soomaaliya in laga sifeeyo rajeynayna wasaaradda gaashaandhigana waxa uga yaal waxay tahay in ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed maskaxiyan ay u dhisto afkaarteeda in jir ahaan ay u dhisto tababar fiican ay siiso iyo in qalab ay ku dagaalamaan oo adag ay hesho si ay u baacsadaan kooxda dhuumaaleysanaysa khawaarijta al-shabaab tali waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyaro badan ayaa jirta oo ku haminaysa inay qortaan ciidanka xoogga dalka halkee ka qoran karaan maxaase lagu xulanayaa waxay ka qoran karaan xirada markaas loo arko amaan ahaan iyo in tababarka ay munaasab u tahay iyo waqtiga la qabanayo oo ay soo go'aamiyeen hogaanada ku shaqo hogaanka tababarka oo kale halkaas ay ka qoran karaan shuruudaha la rabana waxa kamid ah in qofka uu caafimaad qabo inuusan dalkan dambi ka gelin oo aysan maxkamad xukumin amba la arkay lagu ogaanin in qofka dhirka loogu talagalay uu leeyahay inuu caafimaad ahaan maskax ahaan iyo jiraan u fiiw yahay iyo inuu qof u diyaarsan ka soo bixi karo uu yahay tababarada adag oo la siinayo waxyaabahaas lagu xolanaa qofka muwaadinka ah waayo sida caadiga ah waa nala soo xiriiraan dhalinyaradaas waxayna weydiiyaan halka ay ciidanka ka qoran karaan maxaa maanta u sheegaysaa oo halkee ku hagaysaa mase waxaa jira xilliyo la ogolaado in ciidanka la qoro iyo xilliyo hakad ku jiro wax walba nidaam ay leeyihiin dawladaan nahay nidaamku wuxuu yahay in ciidan marka tababar loo qaado in ciidanka la qoro marka kuwaas la keeno in kuwan la qaado dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhiga tababarada markii la sameynayo dhowr option ku sameysaa mar idaacadaha laga sii daayaa waxa la yiraahdaa shuruudaas iyo emailkaas kala soo xiriir marna waxa la sameeyaa in si caadi ah oo aan xoohay aan idaacada laga faahfaahin in saraakiisha ciidanka la ogeysiyo la yiraahdo ciidana loo baahan tariis intaas la egtahay xeradaas lagu qoraa ma hebla la qoraa kidib dhalinyarada Soomaali qof walba ciidana la dhashay oo uu dhalay xogta way hayaan halkaas ay tagaan waa la kala soocaa qofkii loo arko inuu ka bixi karo tababarka ciidanka oo shuruudihii tababarka u yiilay buuxi qofkaas ayaa loo qoraa inuu ka mid noqdo xubin ka mid ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaan ka gudbin isla su'aashaas lambarka ciidamada dhalinyarada ciidamada qaranka qoranaysa gaar ahaan xoogga dalka iyo lambarka ciidan ee dawladda Soomaaliya u baahan tahay markaad isbarbar dhigtaan maxaa idin soo baxay su'aashaygu celi يعني dhalinyarada ku qanacsan inay ciidanka qortaan tiradooda
iyo tirada ciidan ee loo baahan yahay dowladdu ay hiigsanayso maxaa farqiga u dhexeeya horta dowladda Soomaaliya mar walba ciidan ay u baahan tahay dalka difaacidu rabaa cadawga dibadda iyo kan gudaha in laga difaaco ummadda Soomaaliyeedna dhammaan waxay wada garwaaqsadeen inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kaleba dowladda Soomaaliya marba baahida jirto ayay qoranaysaa baahi la leeyahay intaasoo kuno askari dowladda qorata ciidan dama u baahna ma jirto baahi la leeyahay ciidanka dowladda ku batal ma jirto ciidan dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga mar walba waxay diyaar u tahay ama ay u baahan tahay dhalinyaro maskaxdooda fiyowdahay jirkooda fiyow yahay diyaar u ah dalkan inay difaacaan wax walba ay ku difaacaan marka mar walba baahida xilligaas jirto iyo tirada loo baahan yahay ala qaata marka loo baahan tababar kale la furaa way hadda dabcan waxaa socda qorshe abaabul ah haddaan su-aasha dib ugu laabto dadka Soomaaliyeed waxay is weydiinayaan maadaama meelaha qaar uu jira hakad oo howlgalladu hadda ay beegsiyihiin goormee duulaan rasmi ah ay dowladdu qaadaysaa Soomaalidu waxay tiraan nin walba madaxaaga mirax ku duubo wuxuu yiri dadka la gaara madaxooda markaas ay kaaga ka adkaaw waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed qof walba deegaanka ay joogto dhib ay ku hayaan khawaarijta dadka deegaanka iyo dawladdu iskaashanayo haday wada howlgalaan oo xogta cadawga ay soo gudbiyaan ay meesha sida hadda malaaqaas oo kale xogta dadka deegaanka soo gudbiyay saas oo kale inay haday sameeyaan waxaan aaminsanahay khawaarijta si noolaa baayay waa cadow ka shaqeeyo idinka isdila anagana anaxno cadawga noocaas oo Soomaalida isku diraya qabyaalad ka dhex shaqeynayo soo asaga u naaxo cadawga noocaas oo shacab iyo dawlad aan midna aqoonin ko arka dilaayo cadawga noocaas oo caqiide ka aaminsan warliibaanow deegaan hebel imaa islaam tahay hadan imaan islaan ma hayd xagee lagu arkay daar islaam iyo daar kufri xagee lagu arkay marka dadka noocaas oo caqiidadooda faasidka ay tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda waajibka ka saaran waxay tahay in siyaasadda madaxweynaha iyo wasaaradda gaashaandhigga si ay tahay in shacabku wada aaminaan oo cadow inuu yahay khawaarijta qofna aysan dhaafin in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan qof walba ay meeshii joogto qoray ka qaadato wargelis taliyaha meesha jooga oo ka howlgalo oo cadawga la baacsadaan rabaa oo qoryaha laga soo gurubsado ugu dambeyn xitaa waxa la rabaa in haddii xitaa qori qofku waa inuu masaar in qaato madax ugu dhiftaan rabaa mudan afayeen inta aan lagu magacaabin xilkan afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxaad ahayd madaxa wacyigelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagaaga bartay baraarujin iyo wacyigelin iyo inaad ciidankii deegaanadii fogfogaa ee cadawga xoreyn ugu tagto hadda maxaa iska bedelaya howlahaagii baraarujinta ciidanka waxa iska bedelay mala waxa hadafka oo soo galnay shaqadii anaga noola idmaday oo hadda la ii idmado waxa ahaay afayeenka ah shaqadii aan hay jira ayaa la ii cusboonaysiiyay oo teeta la igu siiyay oo awood la igu siiyay tii ayaa xoojinayna bulshadii waxaan kala hadlaynaa miidiyaha ciidamada waxaan ugu tagnaa furumaha waxaan kala hadlaynaa siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga uga degan la dagaalanka khawaarijta iyo sida ay ula macaamilayso dadka soo dhiibayo marka waxaan leenahay xoohay malaha de malab lagu diray waxa la meega waa macaan waa ka sidiisa laakiin meega ayaa u siyaaday marka meega noo siyaada maane macnahi iyo macaankii aan hayn jirno haynayna ilaahay idinkiisa waya soo dhiibayaasha ayaa carab ku dhufatay dhalinyaro badan oo khawaarijta ka soo goosata ayaa maalmihii la soo dhaafay iska soo dhiibtay deegaanada koonfur galbeed ugu badan tahay baydhabo lagu soo bandhigay maalmihii la soo dhaafay Jubbaland qaar baa iska dhiibay galmudug qaar baa iska dhiibay oo xardheer ay ugu dambeysay shalaydan ay kuwa iska dhiibeen faahfaahin naga sidee loo dhaqmaya qofkii iska soo dhiibay xadiiska nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam ataa'ibu min dambi kama laa damba lahu qofkii toobad keena wuxuu lamid yahay soo dambaabay dowladda Soomaaliya waxay leedahay qofka markuu soo dhiibo in xero la geliyo la dhaqan celiyo diin ahaan loo dhiso waxbarasho ku filan la siiyo kadib markii la ogaado inuusan qofkan argagixisada aaminsaneyn in markaas ikhtiyaar la siiyo haduu bulshadiisa kamid noqonayo hadii uu dawladda meesha raba ka galayo qofkaas xor u yahay waa qof muwaadin ah qofka la soo qabtana waa qof shalay inuu dambaabo aaminsan ila ladina taawo min qabla an taqdiru waa qof ayadoon la qaban karin oo la awoodin la soo qabto laakiin cadaadis lagu haayo garwaaqsada inuu bulshadiisa la midoobo dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha ugu horeeyay soo dhaweynaa wasaaradda gaashaandhigga way soo dhaweynaysaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waa loo tababaraa in dadka maxaabiista ay dhaawacyada aysan dhibaateen oo bini'aadanimada iyo heshiisyada caalamiga la gala ilaaliyo marka waa wax nidaam dawli ah anaga aaminsana sida argagixisada qofka arkaan iska bareenay dawladda ma ahan marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed daashala dambaawdeen dawladdiina ayaa in cafinayso bulshadiina ay cafinayso ilaahayna dambiga ka gasheen uga toobad keena way qaybi dambe waraysiga ayaan soo gaarnay mudan afayeen
waxaa tahay hadda afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Sheekh Abuukar waxaa xog naga siisaa barbaarintiisii waxbarashadiisii xilliga ciidanka qaranka kusoo biiray horta aad ma asanta qofka in ayada laga warbixiyo fiican maan in iska warbixiso kuma qurux badno anina dhalinyaro oo xoohay 1996 magaalada Muqdisho ku dhashay waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed Muqdisho ku qaatay dugsiga Quraanka meel miyi ku soo qaatay ciidan ku soo biiray 2017 markuu dhaca qaraxii soo baa adkayso way xasuuqa lagu hayo shacabka Soomaaliyeed bacdama aan weligii aan nacbaa khawaarijta oo aaminsanay hum shirar ummati yaqtulum khayar ummati khawaarijta waa dadka ummadana wax ugu shar badan kuwa khayarsan oo kuwa la dagaalamo oo ku cibaadeysto qaarka miidiyaha kala dagaalamo kuwa gacanta kula dagaalamo waa xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam qofka inuu qofka awoodo munkar arko inuu gacantiisa ku suuliyo qofkan awoodo inuu carabka ka suuliyo qofka awoodo inuu qalbi ka naco horta Soomaali weyn guud ahaan kii dibadda jiray ka dalka jooga waxa waajib ku ah inuu qalbi ka naco waxa waajib ku ah kii awoodo qora qaadi karo oo ama masaar qaadi karo ama xitaa ugu yaraan lacnadi karo oo carabka lacnadi karo inuu la dagaalamo marka anaga waxa noo soo raawday ficil ahaan inaan sameey karno oo la dagaalami karno waxa noo soo raawday in carabka ugu dari karno aan radi karno haddana waxa noo soo raawday in bulshada qulubtooda aan nacsiino khawaarijta tusinana nacaybka ay bulshada Soomaaliyeed u hayaan waxa arkaysaa nin meel kale ka yimid oo dhahayo Soomaaliya jihad u soo doonana masaajid laga adimaayay iyo dugsi laga Quraan laga akhrinayo in la isku qarxiyo jihad noocay tahay ma naqan anaga culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta waqaafta oo kulankay qaban qaabiso madaxweynaha jamhuuriyadda ka qayb galayna fadwada culimada Soomaaliyeed midaysan ka soo saareen waa la socotaan khawaarij waaye culimada islaamka ku ijmaacay waliba kuwan shabaabka khawaarijta ku ugu darnaay waa adduunka Soomaar marka daraasiiso kuwa hore xooga kuwa diinta la dabaga doontay aan laakiin kuwa Mooryaana kuwa isbaaro aalajta 2000 iyo 2005 iyo 2015 kuwa isbaaro tiil ayaan qamiis loo galshay Abu Zubayr al-Guraaley markaas oo dadka iska baabeena marka waa kuwa juhala ah oo diinta xoohay siiru ka taagan kuwa diinta yaqaana waxay rabaan inay ka qaataan waxa la soconaa maalin Cali Dheere ayaa khudbad jeediyay oo ciidanka leeyahay waa caloosho shaqaystayaal oo leeyahay waa maliibanash lagu leeyahay waxa ah askarigi been ay lagu dagaal galiyay markuu dhaawacmo la sii dhameystiray kaasa anaga kuwana dalka lagu daaweeyaa kii lagu daaweey waayeen dibadda loo qaada kii ku shahiidana mushaarkiisa ilmaha qaataan saraakiisha iyo askarteena furunta iskula shahiidaan laakiin khawaarijta amiiradooda waxay ku jiraan godad hoostooda codaday ka soo duubaan dhalinyarada waxay rabaan inay furunta geeyaan marka waxaan leenahay ciyaalkaaga aad meelaha aad wareejinayso ciyaalkaad aad u tahay amiirka kuwaas ayaa maliibanaasha lagu liibaana ah waxayna ku tusinaysaa dawladda Soomaaliya oo mid Cali Dheere iyo dadka la midka ah laakiin sababta ciidanka uu gaar u yeelay waxay tahay xanuun gaar ku hayaan sababta godadka ku jira uga daba galeen dhibaato gaar ku hayaan marka ciidanka ayuu fariin gaar u diray laakiin ciidanka uga dalka Soomaaliyeed waa ka diyaarsan yihiin dhagarrada khawaarijta ay mareegayaan sheekh uu karo maasan tahay gabagabada waraysi aan soo gaarnay xeer hore askari xanaaq uu ka qaaday qortay qaraxii soobe ciidanka kadib sarkaal noqday marar badan waxaa tagtay furimaha meelaha ugu dambeeya cadawga lagu dagaalamayo oo qodobada ugu jeedaysa ciidanka maxaa ugu cuslaay oo aad ku aragto oo xusuusan kartaa oo khawaarijta dhibaatooyinka ku hayeen ama ciidankii aad u tagtay ay dareemayeen waxa ugu cuslaa waxay ahayd khawaarijta al-shabaab inay horta bulshada dhibaato ku hayeen lamarka labaad dadka saaxiriinta ah oo deegaanada caamka ka ah inay ay dhahaan culimada tiina noo saxarooda si ay maran habaabin iyo qofka moogta faasiqa ah oo diinta islaamka aan ku dhaqmin wax walbo bini aadan wax ku dhibaatay kara u isticmaala haddii sixir tahay iyo tafaaful kala boo isticmaala marka meelo waxaan tagnay khawaarijta ay baahala ay ciidan ku soo direen oo quraan aan farnay la akhristay baahalii ay baabeen marka waxaan la yaabnay waxay tahay nin diin sheegana inuu maanta tafaaful aaminsanaado iyo inuu hooyo Soomaaliyeed meel ay furtay yiraahdo waa lagu baaraa diinta baraweysa habeenka wax la baro oo ayadana 3 sano 4 sano 10 sano meel haysteen ay tagto aleeda xaad bara jirtay asii kulay quraan aan bara jiray wadaxa leelina ma gaarin marka 10 sano quraan aan wadax lagu gaarin ku celceliyaan xoohay danahooda gaarka ay ka fushinayeen marka hadafkooda gaarka oo inay dhiig umada baabi'iyaan iyo ahdaafta ku gaari lahayn ay ka shaqeeyeen annaga marka furmaha tagnay siminaaraha furnay oo ah dhiigga muslimka xoohay halista uu leeyahay in la daadiyo in lagu farxo halista ay leedahay welina miidiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliya waa ka gudbinaynaa diyaar ugu dambeyntii kelmadaada ugu dambaysa iyaad fariin u diraysaa iyaad jeclaan lahayd inaad maaragtaa la dardaaranto waxaan fariin u dirayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dal xoogaa khayraadkiisa oo haddii badda aaleed haddii biriga aaleedba ilaahay uu qani ka dhigay
waxaan nahay dad islaam ah oo boqolkiiba boqol dad muslimiin ah oo aan gaalo laga helin waxaan nahay dad ehel ah oo walaalo ah oo isla dhashay isdhalay waxaan rabnaa inaan dowladnimadeena iyo diinteena islaamka iswaafajino waxaan rabnaa in diinteena islaamka aan difaacno waxaan rabnaa qof kasta oo diin sheegto qamiis wata inaan la aaminin waxaa la rabaa qofkaas cv-giisa in dib loo aqriyo muxuu ahaan jiray muxuu sameyn jiray in la yiraahdo suurtagal maa nin 2015 isbaara meel u tiile in qamiis in loo galsho 5 bir sheekh lagu marada Soomaaliyeed tiraada ina culimo ka aamintaan maahan in culimada rasmiga ah oo 30 sano iyo 40 sano duruusta aqrinay war weydiiyay diinta islaamka waxay ka qabto dowladnimadana laga shaqeeyo dowladnimadana deeqdo hadii amaan la waayo oo amni la waayo masaajid lagu dukamaa kitaab la akhriso ma waxna la baramaayo caafimaad laga shaqeeyo maayo wax asal marka amniga waa nolosha bini'aadamka amniga asalka ah marka amniga wax walba asalka ah amniga laga shaqeeyo midnimadan aan ku dadaalno aad u maasan tahay kaasi wuxuu ahaa afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xidigle Sheekh Abuukar Maxamed Xasan oo aan wareysi gaar ah halkan kula yeelanayay idinkuna ku mahadsantihiin daawashada wareysigan tan kula dambe wareysigan laceena nabadgelyo aad u maasan tahay tali thank you